جسميينتي وإسكو وذا خلاف سيهين محي سعادة كدغان تahay waa isku khilaafsan qaarkood waxay sacaadadii habinimada ku macneynayaan dhaqanka fiican iyo ku macneeyaan sida xigmad qofku inuu leeyahay murti geesinimo cadaalad dhowrsooni qararkaas ay la mareen qaarkood waxay dhaaheen sacaadadii habinimadu shan arrimood bay ku jirtaa qofku jid caafimaad qaba leh hanti haysta iyo qofka oo maxaa la yiraahdaa xaqiijinaya maya waa qofka jir caafimaad qaba leh hanti haysta aqli caafimaad qaba haysta sumcad wanaagsan leh objectivi ahdaafi oo xaqiijinayana leh shanta bayran qolob ayaa habinimadii iyo sacaadadu ku jirtaa bayran qaarkood waxay leeyihiin sacaadadu waxa weeyaan waa qofka oo maxaa la yiraahdaa dareemaya inuu xoog leeyahay oo wixii dib iyo culays horjaaga ka adkaanayo jiraya isku arkaya meelo badan bay mariyeen qaarkood waxay leeyihiin habinimadu waa inuu qofku caruur leeyahay waa inuu hanti leeyahay waa inuu guryo badan leeyahay meelo badan baa lala kala maray islaamka markaan eegno maxay tahay sacaada iyo habinimo maxay tahay waxaa lagu soo ururin karaa inay tahay sacaadadii habinimadu dareen qofka bini'aadanka gudihiisa ku jira oo uu dareensan yahay raaxo deganaan dareenkaas marka waa dareen gudaha maaha sacaadadu mafhuumka islaamka wax la haysta material maaha lacag maaha guryo maaha caruur maaha caafimaad maaha waxa qofku haysta maaha waa dareen gudaha qofka bini'aadanka ka imanaya oo gudihiisa ka dareemayo oo qofka u horseedayo sabab u noqonaya inuu deganaado inuu xasiloonaado macnahaas lagu macneeyaa macnahaasi waxa laga soo dhambashay aayado quraana ay kamid tahay alladheena aamanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub ilaahay xulay dadka iimaanka leh qulubtoodu waxay ku xasilaysaa ilaahay xuskiisa alladheena aamanu dadka iimaanka leh wa tatma'innu waxay ku xasilaysaa qulubuhum bi dhikrillah qulubtoodu waxay ku xasilaysaa dhikriga ilaahay ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub ilaahay dadkii muuminiinta hadii saa loo sifeeyay ilaahay wuxuu leeyahay hooy baraarugo ilaahay xuskiisa ayay qulubtu habbi marka sacaadadu waa dareen gudaha qofka bini'aadanka oo waxa weeyaan uu ka dareemayo maaha mafhuumka islaamka sacaadadu xoolo maaha hadday xoolo ahaan lahayd waxaa jira dad badan oo hanti badan haysta oo haddana walwalayo oo cabsanaya qaarkoodna ilaahay nagama dhiga noloshoodii waxay ku gabagabeeyeen isdilay bay ku gabagabeeyeen marar badan adduunka marka raaboorada la soo saarayo meelaha ugu dhaqaalaha badan adduunka ayaa waxa la soo saaraa inay tahay meelaha la isku dilka badan yahay oo qofka bini'aadanka naftiisa uu ku khaarijiyo joornaal carbeed oo caan ah oo Russell Yusuf leeyahay ayaa wuxuu mar qoray article wuxuu Twitter uga dhigay Twitter cajiib uu uga dhigay wuxuu Twitter uga dhigay ahlul jannati laysu su'ada intiin carabida taqaan wada yaabaysiin Twitterka iyo cinwaanka waxay uga dhigeen cinwaan ahlul jannati laysu su'ada ahlul jannadi maliibaansano habbi ma dareemayaan ma raaxaysanayaan ahlul jannadi Twitterka bay qaateen isweydiinaysa ahlul jannada loo jeedi waayeen waxaan hubnaa ahlul jannada aakhiradu halka ugu wanaagsan inay marayaan oo ay waxa weeyaan raali yihiin oo ay raaxaysanayaan baa tawan hubnaa marka hoostada si akhri article-ka waxa weeyaan ahlul jannada waxay ula jeedaan waa dadka ku nool wadanka Sweden waad garanaysiin waa meelaha ugu dakhliga badan waxa qofka bini'aadanka baar shakhsi u soo gala
adduunka kuwii ugu horeeya marka maqaalka wuxuu leeyahay dadka adduunka ugu dakhliga badan haddana habbi ma dareemaya waxaa ku badan kiriimada isdilka walwalkaa ku badan halkaa marka waxaad ka arkaysaa sacaadada iyo habbinimadu hanti iyo xoole inayna ahayn ninkaan iga garanaya reer galbeedka iyo waddannadaas weliba dhaqaaloogu aadka u fiican yahay qofka bini'aadankaasi tacliinta bilaasha looga dhigayo caafimaadkii uu helayo waxa weeyaan carruurta markay yaryar yihiin la siinayo masaariftoodii maxaygoogii haddana qofkiisii habbi iyo sacaado waxa weeyaan ma dareensano asiroonsiyaa la gelinaya qofkii wax badan baa loo tawfiirinaya sheekh oo waxa weeyaan masar lagu dilay mar hora oo la yidhaaho ashahiid sayd qutb maraykankuu muddo ku noolaa markuu ka soo noqday wuxuu qoray buugu u bixiyey amriika latii ra'aytu waxaan ka warramayaa buuri maraykankan soo arkay wuxuu buuggaa kaga warramayaa dadka maraykan ku noolaa waktigaas waa waqtigii hore weeyaan waa kotonnadii lixdanadii weeye iyo sidii ay u dhibaataysnaayeen marka la eego gudahooga iyo habbinimada si u dhibaataysnaayeen ayuu buuggaa kaga warramaya caddaanku iyo kaa qoraya hadda inaynan maxaa la idhahaya aynan raaxo ku noolayn iyo kiibaa qoraya ininka la noolna wejiyadooda markaa tareennadii iyo aad la socotiin waxaan u malay inaad aad uga akhrisatiin dadku siday u daalan yihiin iyo siday u welwalayaan nebigeenuna sala allahu calayhi wasalam hore baa wuxuu inoogu sheegay liibaantu adduunka inayna ahayn keligii wuxuu yidhi sal alla alay salam xadiis cajiiba oo saxiixa oo sugan ayaa wuxuu ku leeyahay man kaanat ilaakhiratu hammahu qofkay aakhiradu tahay waxa hammi gelinaya ee uu ka fikirayo ee uu ku xisaabtamayo aakhiradii qofka ku xisaabtamaya ee hammigiisa ay ku jirto wuxuu nebigu leeyahay sala alla alay salam jacala allahu ghinaahu fii qalbihi ghaniimnimuu qalbiga ilaahay u gelinaya qofkaas aqal aakhiruu dhisayaa aakhiruu ku mashquulsan yahay hammigiisa ku jirta adduunka aa ka shaqaysan maaha laakiin waa gacanta ku hay aakhirana qalbigaaga ku jirto wuxuu leeyahay nebigu ghaniinimadii ilaahay qalbigiisu ugu ridaya wajamaca lahu shamlahu arrimihiisana ilaahay wuu u ururinayaa buu nebigu sal slam arrimihiisa ka kala baahsanaa ilaahay wuu u ururinayaa wuu u toosinayaa arrimihiisa wa atathu dunya wahiya raaqima buu nebigu sal slam adduunkuna waxay u imanaysaa iyadoo ku qasban ba u imanaysaa macnaheed waxay ka dhigan tahay adduun waxa kaaga qorani wuu ku soo gali un xataa bini aadan hadday ku wada heshiyaan ay kuu diidaan kol hadduu maqduur yahay uu maqsuum yahay wuu kuu imani doonaa marka nebigu wuxuu yidhi adduunku iyadoo qasban oo socota ayay u imanaysaa qofka ka soo horjeeda aan eeg oo qof adduunka ka dhigay wax kasta ka dhigay wuxuu nebigu yidhi sal salam waman kaanat iddunyaa hammahu qofka adduunkani hammigiisa ay tahay adduunuu ku xisaabtamaya aakhire iska iloobi isku gee kala goo habeen iyo dharaar ku hawloon kalkiil iyo xisaab ku jira ee aakhire aanan xisaabta ku dirsanayn ilahay nagama dhigeen siduu u nooliyay qofkaasi nebiguna waa run sheega sal salam noloshana maanta waan u joognaa waan aragnaa nebigu wuxuu leeyahy waman kaanat iddunyaa hammahu qofka adduunkan uun hammi gelinayo jacala allahu faqrahu bayna caynayhi ilaahay faqiirtinimada labada indhood hortooda ama dhexdooda ayuu ilaahay u dhigaa gaajo uun baa la tusi maanta oo dhan uu ka cararayaa un faqriga wuxuu nebigu yidhi labada indhood dhexdooda ayaa loo dhigayaa marka caymada iyo nafta ay ka baxday ee habeenkiina sida marbuuca un mar keliya meel ugu dumaya wafaraqa calayhi shamlahu buu nebigu yidhi maadaama adduun uun keliya uu ku xisaabtamay aakhire ka saaray ilaahay arrimihiisana u kala baahinaya waxaa laga yaaba inay lacag badani soo gasho laakiin dee way ka baahaysaa xanuun maxay xisaabaad badan baa ku furan leanno aakhiru meesha ka saaray xaqi ilaahay buu iloobay marka wuxuu nebigu yidhi faraqa calayhi shamlu arrimihiisaa loo kala kaxaynaya buu nebigu sal slam waxaa yaaba walam ya'tihi min addunya ila maa qudira lahu adduunna uga imani mayso ilaa wixii loo qoray mooyaane soomaaliduna waxay tiri calaf diin gorayadu ma qaado calafka diinka aadka si culus u socda meel lagu yaala
goraya intay ordayso ka qaadi mayso isaga un baa iska gaari doona aakhirka sida uu u sii tukubiyo bini aadankana adduun inuu ka dhergin xadiisaan badan buu nabigu noogu sheegay sallallahu alayhi wasallam waxaa ka mid ah low kaana libni aadama waadiyaani min dahab bini aadanka haddii la siin lahaa laba dixood oo dahaba laba dixood oo waaweyn oo dahaba haddii la siin lahaa labtagaa lahumaa thalitha mid saddexaad buu raadi dixda saddexaadna laygu daro un buu tu saddexaad haddii la siiyo tu kale un buu sii raadi taasi waa adduun iyo xoolo dadka qaar waxaa laga yaabaa sacaadada inay u haystaan inay carruurta ku jirto laakiin way dhacdaa mararka qaar carruur wanaagsan oo tawfiiq helay habbinimada qayb weyn bay ka qaataan xoolo xalaala oo aad haysid oo xaqa ilaahay inaad ka bixinaysid qayb bay ka qaataan laakiin lama odhanayo dee sacaadadu carruur keliya ku jirtaa maantana waan u joognaa dad badan baa jira oo carruur leh laakiin dee waxa weye caaq ay ku noqdeen oo kadeed ku noqdeenoo walwalkoogii uu kaga gooyey sideedabana nebigu xadiis wuxuu ku yidhi sal slam alwaladu majbanatun mabkhala buu yidhi sal slam ilmaha waxaa laga qaadaa fulanimo iyo bakhaylnima laga qaadaa adoo marka hore waxaa laga yaabaa dhiiranaan jiro geesi ahaa unba kolka carruura timaado fulo unbaad noqon fulanima kusoo gali bakhaylnima kusoo gali adoo waaga hore bidixii midig uu kala diri jiray waaga dambe waa adiga un kuush iyo caaniya maxay iyo xisaabo kala kuu soo gelaysa sacaadadu ma la odhan karaa waa aqoontan iyo teknolojiyadan ma la odhan karaa keliya halkaan ma ku jirtaa ma la odhan karaa waa maya ninkaa maanta jooga meelaha aadka u horumarsan teknolojiyadda haddana habbinimadii iyo deganaantii inaan lahayna kulli waxaan mali ninkaa ka markhaati ah bini aadankana maanta horumarku dhibaatooyin badan buu kusoo dhiiriyey waxaa la samaynayaa hubab adduunka mar keliya gumaadayaa la samaynayaa waxaa dhaqaalay ugu badnaa ee lagu bixin lahaa caafimaadka bini aadanka iyo kubiciisa dhaqaalaha waxaa lagu bixinayaa tartano hubaa lagu galayaa iyo dil iyo isdil baa lagu galayaa waa run oo cilmigu wax badan buu fasiliteeyey laakiin dee dhibtiisana wuu hadda resources yogan isticmaalno dee faa'iidana wuu leeyahay laakiin intaas oo dhibana wuu leeyahay waxaa dhibtiisa ugu bayar carruurtii oo tarbiyadoodii laga mashquulay oo aabbihi hooyadii ninba intuu mid galo maanta dhan halka ay wadaan ilmihina dee mid kale unbuu galaya halka ilmaha la sheekaysiga iyo dabeecsanaanta iyo ay ilmaha tarbiyadiisa qayb weyn ka qaadanayso marka la soo ururiyo fikirka islaamka sacaadadu waa arrin macnawiya weyn maaha wax maadiya maaha waa wax macnawiya oo qofka bini aadanka uu gudihiisa ka dareemay waxyaalahan kale ee qofku u haysto way caawinaysaa habbinimada kor bay usii qaadaysaa way caawinaysaa nabigeenuna sala allahu calayhi wasalam waa kii xadiis ku lahaa min sacaadati ibni aadam bini aadanka sacaadadiisa iyo liibaantiisa waxaa ka mid ah almar'atu asaalixa haweeney wanaagsan inuu helo nin wanaagsanna dee markaa xaggii haweenta sacaadadeeda qayb weyn buu ka qaadanaya iyo walmaskanu saalix buu nabi guri fiican iyo walmarkabu saalix iyo baabuur iyo wuxuu fulo fiican saddexdaa hadduu helo buu nabigu sal slam bini aadanku sacaadadiisay qayb ka mid tahay laakiin dee sacaadadu saddexdaa keliya maahine waa wixii gudaha iyo shucuurkii iyo dareenkii gudaha weeyaane saddexdana way caawinaysaa kor bay usii qaadaysaa waxaan markaa kelmaddeeda kusoo khatimayaa maxaa sacaadada haddaba laga helaa halkee iyo halkee baa laga helaa kow waxaa sacaadada laga helaa walaalayaal aliimaan yaa sacaadada inaan iimaankeenna xoojinno xidhiirkaan ilaahay la leenahay aan kor usii qaadno iimaan sacaado iyo habbinimo waa meesha koowaad ee ugu weyn ee laga helo awaman kaana maytan faaxyaynaahu wajacalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas kaman mathaluhu fi dhulumaat bulayd ilahi wuxuu leeyahy qof dhinsanaa oo aan nuur siinoo noolaynay nuurkaa la sheegi waa iimaankii waa islaamkii waa daacaddii ilahi wuxuu ka dhigayaa nuur iyo nolol buu ka dhigaya wakadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina buu ilahay waxaan ku waxyoonnay naf amarkeega ah waa qur'aankii iyo waxyigii iyo iimaankii iyo islaamkii iyo ruux buu ilahay ka dhigaya subxaana watacaala ruux buu ayuu ilahay ka dhigaya iyo aayaddaan akhrinayna aladiina aamanuu watatma'inu quluubuhum bidikri illah
waxyaalahaas waxay tilmaamayaan sacaadada xaqiiqiga waxay ku jirtaa iimaanka alla ka baqa inaad ilaahay xiriir wanaagsan oo dawlo leedahay halkaa bay habinimadu ka bilaabato halkaa maalintaad hagaajisid habinima ku bilaabo halkaa ay maalinta ay jajaban tahay liidatana waxaad ogaataa waxaa dooni isku mashquuli oo hay oo khaanadaasi maadada iyo material kuma buuxinayaan walaalayaal ma buuxinayaan marka taa waa inaan ku dadaalo nimanka reer galbeedka adduunka saddexaad waxyaalaha ay kala yaabaan waxaa ka mid ah qof bay raaburada ku soo daran qofka waxaa la arkaya gaajoonaya oo derbi hoos jiifa laakiin haddana qoslaya waxay yidhahdeen siduu u qoslayaa bay qofkan annakii haysana intaas oo kharash iyo intaa oo facility haysanaba qosalkii waan kari lahayn walidaalika hadda waxaad aragteen waxaa soo baxay qosal istinaaciya qosal iska yeelyala soo baxay oo teeska diyaaradihii waa ininka arkay iska yeelyeel halka qof muslimina oo laga yaabaa inuu qoslayo qosal iska daacada isagoon material badan iyo maado badan aanan haysan laba waxaa kaloo sacaadadii habinimada laga helaa التفكير الإيجابي qofku inuu u fikirayo si positive inuu fikiro iftiinka iyo madowga inuu aragay iftiinkana inuu arko dibta iyo dheefta dib uu inuu markaas indhiisa saarinay dheeftana inuu arko ilaahay wuxuu leeyahay fa inna ma'a al-usri yusra inna ma'a al-usri yusra ilaahay wuxuu leeyahay adayga fudayd baa la socda culimadeenu cajiib waxay yiraahdeen al-usri maadaama alla socoto xabadun bay ka dhigan laakiin yusridu waa nakiro alla ma socoto laba fudayd bay ka dhigan marka waxay yiraahdeen lan yaghliba usrun yusrayn bay yiraahdeen hal aday laba fudayd kama adkaanay nabigeena waxa cajiibay sallallahu alayhi wasallam markay ugu adag tahay ayuu si positive u fikri jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam ugu adag tahay ee la kiilo ayuu nabigu amal iyo rajo iyo muujin jiray hog buu ku jiraa markuu hijroonay sallallahu alayhi wasallam qaaru thawr ayuu ku jiray sagii Abubakar nimankii gaaladii waxay leeyihiin isagoo nool iyo isagoo dhisan hadii la keeno 100 halaad buu qofka ay leeyahay raacda la galay si loo socday baa hog ku jiray baa la dul yimid samba loo dul joogaa Abubakar baa walwalay ya rasuulallah law nadara ahaduhum ila qadamayhi ila tahti qadamayhi la ra'ana la absarana midkood haduu lugihiisa hoostooda eego wana arkay buu ya rasuulallah Abubakar naftiisa uma baqayay wuxuu aad ugu walwalaya udgoonihii in dib loo geystay sab'san nabigu muxuu yiri maalinta ilaahay quraankiisa ku waariyay إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا يقول أبو بكر أول ولين وأمرقون إلهي بإن لجود يعني حالة صدا وأرك أيو نبي يقول إلهي بإن لجود أمرقون هبجرت يا ابن الله صلى الله عليه وسلم قال دي مدينة الله هريرين يا غزوة الأحزاب خندق بالقضي صحابته خندق ويكد دالين حق بالقضي بهلا القضي سير قالوا دو صوت اللابين دغ حدق با كسو هغاغيا intuu qaada nabigu maxaa la yiraahday burjis ayuu ku dhifanaya markaasuu leeyahay futihat ar-rum baa la furtay saxaabadu yani waa cajiib magaaladii waa la keenay Madiine rum waxa la furan doonaa waqti dambe la furan doonaa amal iyo rajo bilaabaya sallallahu alayhi wasallam yani hal cajiib waxa kamida dagaalka ahzaab nabigu yani saxaabadu aad u rafaadeen nabigu xitaa uu gaajooday sallallahu alayhi wasallam dhagax buu caloosha iska xidhay nin saxaabiya xaaskiisii u tago wuxuu rasuulka gaajoon baan arkay maxaad haysaa buu waxa ku tiri waxa nabiga uu ku filan baan hayaa sallallahu alayhi wasallam u yeer nabiga kaligiis nabiga uu tago sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri ya rasuulallah in yaro harimaan ku haynaayo afkaad galiside ina keen buu ya rasuulallah markaasuu nabiga sallallahu alayhi wasallam saxaabadii u dhawaaqay wuxuu yiri war hebel baa inni casuume ina wadiya alasra aqalkii markii lagu dhow yahay ninkii uu ka horgalay xaaski gabadhii way cuntay ila dirirtay waxay tiri rasuulku kaliya soo kaxay baan ku leeyahay ummadda dhan baad dabada ka soo martay boqolaal buu nabigu soo kaxay saacan markaas nabigu tuu galay ayuu dhariga dabka dul yaala qandoof ku yiri markaas uu dhariga dabka ka dhiginay dadkana wuxuu hore buu u kala mina wara u qaybiyay saacan waxay leedahay hilibkii iyo fafixii iyo cuntadiisii iyadoo sidii uu u buuxda ayay dadkiina boqolaalkiin intii dhargeen iska kalsoon waa barkadii nabiga saacan لكن إيه سووا حساب تمايو
waqtiga adag nabiga sallallahu alayhi wasallam marka haddaad doonaysa habbi inaad noqotid ilqoda una nolosha ku eegin halka madow iyo jajabka iyo dhibta una eegin fudaydkana eeg in laga bixi doono ku xisaabtan taas waa muhiim marka waxa kaloo habbinimada lagu helaa qofku inuu ujeedooyin leeyahay ujeedooyinkiisaana inuu xaqiijiyo inuu ka shaqeynayo ujeedooyin diiniya ujeedooyin waxbarasho ah ujeedooyin shaqo ah ujeedooyin qoyskiisa inuu horumariyo qofku waa inuu objective yahay ahdaaf waa inuu dhigto ahdaaftaana waa inuu ka shaqeeyo siduu u xaqiijin lahaa hadduu fashilmo kama dhigna inuu finaalkii joogo fashalku waa bidaayatu najaax haddaad fashilantood guuldarraysatid inaad guulaysanaysid bilowgeegii baad joogtaa triga hadda aan iftiinsanayno Edison baa sameeyey 261 jeer ayuu ku celinayay inuu fashilmay wuxuu yiri markuu dhameeyay ma murugoono yiri laana waxaan garanayaa buu 261 dariiqo fashalka loo maro aan hadeed ka beerayaan garanaya yaan garanaya waxa kamid ah waxyaalaha kale habbiga lagu noqdo qofku inuu qof bulshaawi noqdo oo cilaaqaad leeyahay asxaab leeyahay qaraabada xidhiidhinayo waa waxyaalaha habbiga lagu noqdo haddaad isoolay qof keligii socdo noqotid adaas ku buufiyo marka xidhiidh waa inaad samaynaysa waan garanayaa dhulkaad joogtiin xidhiidhku waxa weeyaan ma fududo laakiin dee telefoon iyo intii munaasabaad la samaysan karayo ama noqoto ciidaha ama munaasabaadka kale sooshiyaalka ijtimaaciga maxaa la dhahay aroos iyo dhalasho ilmi iyo aan noqotee inta la isku iman karay dadku in isku xidhiidh waa in dadku lahaadaan laano sharcigeennani ma qabo inuu qofku yiraahdo tayada hadday ii dhan tahay inta kala dabaylo aqaadan sharcigeenu ma qabo diinteenu waxay ku dhisan tahay istaageersi isdhexmar iyo isweheshiis ku dhisan wuxuu nabiga sallallahu alayhi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi qofku iimaan dhammaystiran ma helayo ilaa uu naftii walaalkii la jeclaado wuxuu naftiisa la jecel yahay waxa kamid ah waxyaalaha habbiga lagu noqdo ee wixii adduunkan ilaahay kaaga qoray inaad ka heshido xalaal oo aad xalaalna ku maaraysid waxa kamid ah waxyaalaha kale habbiga lagu noqdo inaad dadka caawisood garab joogsid kelmad wanaagsan oo waana ku caawisid toosin iyo maxaa la dhahay tilmaamis ku caawisid hadaad jeebkaagu roon yahayna aad mashruuc khayriya ka shaqeyso dadka aad wax la qabatid agoonka ka baahan ka dhibto haysato aad garab joogtid qofku markuu dadka caawinayo wuxuu dareemayaa habbinimo badan ku dareemaa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam adoomaha ilaahay waxa ugu dhow anfa'uhum linnas ilaahay wuxuu ugu jecel dadka wax u tarayo u jecel yahay marka waxyaalahaas iyo waxyaalo badan oo kale ku garanaysiin waxyaalaha lagu helayo habbinimada waxa ugu muhiimsan iimaanka iyo xiriirkan ilaahay la leeyahay inaan aad u xoojino waxaan ballan qaaday inaan gaabin waxaan u maleynaa dheereeyay aad baan wada salaamaya mar labaad dib u dhici waan iga raali gelinayaa jazakumullahu khayr wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ما شاء الله تبارك الله جزاك الله خير ألف جزاء يا شيخ عثمان